بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii barnaamijkani waa barnaamij ii taxana ahaa oo aan ugu talagalay gubaabada bulshooyinka beelaha gabooye. runtii markaa in badan dadku waxay isweydiinayaan ninkan maadaama professional oo dhakhtar yahay ama nin aqoon la yahay maxaa reer daba wada. runtii waxaan ogahay PhD holder kasta, professor kasta iyo every educated person wuxuu ka yimid beel iyo qoomiyad buu ka yimid. runtii waxyaabaha igu kalifaya in aan runtii muddooyinkan inaan professionkayga intaan dib u yara dhigo inaan arrinta qadiyadan soo hordhigo waxa weeyaan waa laba. runtii waxa aan ka imid ama aan arkay bulsho burbursan oo dad ahaan humanitarian crisis ku dhacay inaan kasoo jeedo. runtiina waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku maamahdaa oo ay ku maamahdaa yacni biyahaad hoostooda aragto dushooda aragto hoostoodana maxaad maray. runtii dadkan aniga ila teetalka ah runtii waxay ka yimaadeen qoomiyado iyo bulsho dhisan. markaa that's why the difference ka aniga iyo iyaga noo dhexeeya uu yahay. topicana waxaan maanta rabaa inaan kasoo qaato inaan bulshooyinka beelaha gabooye haddii kuwa localka jooga internal Soomaaliya jooga yihiin iyo haddii kuwa diaspora groupska yihiinba. haddaba waxaa isweydiin leh mar kasta oo uu qofka bini-aadmiga ah ilaahay uu abuuray uu dhammaystiran yahay ilaahay uu la xisaabtamaa. wuxuu kula xisaabtamaa waa kow cibaadadiisa, caqiidadiisa iyo diintiisa iyo caafimaadkiisa. intaa ka sokow haddana waxaa imanaysa xisaab ah cilmiga uu qofkani barto muxuu ku qabtaa, waa kow muxuu dadkii ugu faa'iideeyaa, waa laba way imaanaysa. runtii inaan ugu faa'iideeyo cilmiga aan soo bartay runtii bulshada way iman doontaa insha allahu tacaala. speciallyna waxaan ka bilaabi doonaa deegaamada aan kasoo jeedo hadday kamid tahay Daami, hadday kamid tahay Jamalaaye, hadday kamid tahay deegaamada kale ee xaafadaha ay bulshooyinka reer Somaliland ee gabooye ay degan yihiin iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee gabooye ee ku kala nool deegaanada Soomaaliyeed ee kaleba way iman doontaa waqti aan si voluntary aan ugu shaqeeyo especially xaaladahooda caafimaad aan uga howlgalo way iman doontaa waqtigeedaana sugaya. waxaan rabaa markaa inaan isweydiiyo kow waxaanu nahay ummad Soomaali oo dhani ay dhinac ka martay oo ay run ahaantii ujeeddo isku mid ay ka wada leeyihiin ka xamar jooga, ka Puntland jooga iyo ka waqooyi jooga. runtii waxaynu nahay dad target ah oo la target garaystay baynu nahay. haddaba inaga roolkee baynu ku leenahay. run ahaantii dadku waxa ay ka fikiraan runtii Soomaali maanta dad ahaanna way wada burburtay, dal ahaanna way wada burburtay. Soomaali ummadda Soomaaliyeed oo dhan inaguna waynu ka bisi xaq jirnaayo. Soomaali oo dad ahaan dhisan, dal ahaanna dhisan baynu inagu dad ahaanna burbursaneen, dal ahaanna aynu burbursaneen haddaynu beesha gabooye nahay. marka waxaan anigu u baahanahay in aan ka hadlo kow war ma sameynaa humaynad billi wax leedahay. dad ma dhisanaayo, dad ma abuurnaayo, dad ma samaysanaayo. run ahaantii dad markaan leeyahay aynu samaysano aynu dad abuurno waxa weeyaan dad cilmi leh inaynu sameyno. waxa aan runtii aan aad iyo aad uga xumahay oo boqolkiiba boqol ka xumahay diaspora community gabooye oo run ahaantii roolkii ay ku lahaayeen bulshadooda inay dhisaan ama dadkooda ay dhisaan, deegaanadooda dhisaan ay run ahaantii ay gabeen ay kow ka yihiin. waayo waxa weeyaan walaal Soomaali cidi waxba uma qabato. ma waxaad aragteen dawlad Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed wax u qabata? ma waxaad aragteen Somaliland haddaad timaado Somaliland dadka wax qabsaday dad dawladdu waxba ma ay qabsan. Puntland dadka wax qabsaday ee dawladdu waxba ma ay qaban. Soomaaliyana waa adiga arkay dadka burburinaya ee dawladdu ma burburiso ama dadka wax dhistay dal wax dawladdu wax ma dhisto. haddaba inaga maxaa inoo diiday inaynu inagu noqono dad wax dhista? qaabkeesa loo dhisanaya waa kow. I know every educator gabooye oo diaspora jooga he knows violence inuu yahay, he knows dadkan dhibaatada haysata qaabkii looga bixi lahaa laakiin uurkiisu ku haysta. that's why inagu aynu noqonay dad inagu aynu dad ahaan burbursan. waayo markuu ninka aqoon-yahankii fikirka isagoo ku jira ee saliimka uu bulshadiisa usoo bandhigi waayo dee isagii baaba sii burburaya oo qof ahaanba sii burburaya. marka anigu intii run ahaantii aan fikirkayga saliimka ah
iyo inta garaadkayga iyo aqoontayda isiisay inaan dadkayga wuxu sheego waa aan jeclaystay inaan la aamuso laakiin ma jeclaysan. okay, laba dagaal baan anigu ku jiraa run ahaantii. dagaal ummadda Soomaaliyeed baan kula jiraayo war xaqayga iyo dulmigana naga tahay xaqaygana nasiya waan leeyahay. kow dagaal labaadna waan ku jiraayo dadkaygii baan guubaabinaya. labada dagaal baan anigu aan ku jiraa run ahaantii. waxa aan jeclaan lahaa war haddii aynu nahay ummadda qurba joogta beelaha Gabooye waxaa jira every community Soomaaliya ka tirsan oo diaspora jooga wuxuu leeyahay ururo. the community contribution bay sameeyaan ay dadkooda dhibaato markay ka soo dhacdo ama dadkooda ay wax ku dhacaan u ururiya oo wax ugu qabta. maxaa loo waayay jaaliyad Gabooye oo dal kaliya ka dhisan oo inta ay wax urursadaan ama ay dadkooda contribution ka isu yimaadaan ay ururiyaan hal MCH, hal school, hal madrasad, hal masaajid inay deegaamadooda ka dhisaan? maxaa loo waayay? maxaase inaga hortaagan? ma capability-geedii baynaan lahayn mise humiinad ahaan baynaan u abuurnayn inaynu noqono dad sidaa isu dhisa? ma waxaynu nahay dad suga uun inay cawdaan oo ay yidhaahdaan dhibaataana lagu hayaa waxaana lagu hayaa? dhibaato waa laynagu hayaa waa run, inaynu cabanana xaq baanu u leenahay waa run, laakiin inaynu isdhisno maynaan xaq u lahayn? taasna waa su-aal meesheeda taalla. su-aashaa jawaabteedu idinka idin taallaa. anigu waxa aan ka mid ahay qurba joogga beelaha Gabooye especially ku nool waddankan Sweden. runtii tusaale ahaan baan usoo qaadanaya waddanka Sweden. waxa aan soo galay waddanka Sweden oo run ahaantii dadkeen beelaha Gabooye kasoo jeeda aanay community ahaan dad dhisan ba ahayn oo run ahaantii u baahan iyagu in ay la dhiso oo la ururiyo. aad moodo runtii conflict fara badan inta dhowr jeer la isku dayay in la dhiso in conflict fara badan yimid. runtiina conflict markuu yimaado solution-keeda la helo. haddii adiga aad noqon weydo qofka solution-ka raadiya oo aad ka partner ka noqoto conflict groups-kaas qolooyinka khilaafka wada aad ka mid noqoto waxa ay noqonaysaa in dadkaasi ay bulsho ahaan sidaa u burbursanaadaan. waxaynu ognahay in magaca minority ama magaca Gabooye in community aan Gabooye u dhalanin ay mashaariic ku qaataan oo ay Somaliland geeyaan oo ay yidhaahdaan iskuulaan u sameynayna oo ay yidhaahdaan madrasadaan u sameynayna. idinkiyo Sweden dhexdeeda ku nool oo aad xaytihiin ba magaciini dushiini lagu isticmaalaya that means dad hurdaatihiin. anigu markaan waddanka soo galay waxaan isku dayay in aan sameyno urur. waxaan contact la sameeyay Gabooye degan gobolada Sweden. run ahaantii waxaan fikir usoo jeediyay anigu shakhsi baan ahay Gabooye ka mid ah. ma rabo inaan noqdo qof leadership idin ah ama idin ahaan doona, laakiin waxaan u baahanahay inaan fikir ahaan soo jeediyo inaynu Gabooye ahaan aynu jaaliyad samaysano, inaynu walaalo dadkeena 50 kron haddii aynu contribution samayno oo aynu 50 kron account ku shubno waxa ay wuxuu qabanaysaa inanka daami waxbarashada ku waayay dhaqaale la'aan darteed, inanka jaamalaaya waxbarasho la'aanta ku waayay dhaqaale darteed inaynu fiiga ka bixino waxbarashada ee walaala aynu samaysano oo aynu horta the first priority hore aynu siino inaynu noqono jaaliyad wax ka bixisa every region Somaliland kamida ama Soomaaliya kamida inaynu at least 20 arday aynu wax ka bixino. waxa aynu ku deganahay haddii aanan tiradaas ayna qaldanayn ilaa iyo 3000 4000 oo qof oo Gabooye abaynu ku deganahay Sweden ama kunba haddaynu ka soo qaado. okay, kunka qof ee Gabooye kamid ah every citizen Somaliland in Gabooye kamid ah waxa uu shaqeeyaa ama wuxuu qaataa lacag cayd ah. caydii haddaad $50 kron bishii ka goysaan oo 50 kron aad sadaqa ahaan contribution ugu samaysaan dadkiina waxa ay wax ka bixinaysaa 30 inan 40 inan oo maanta ciil iyo caro waxbarasho la'aan dhaqaale la'aan darteed Gabooye ah oo Hargeysa iyo Burco iyo Berbere iyo Muqdisho iyo Boosaaso waxbarasho la'aan xaalad dhaqaale darteed u fadhiya ay wax ka bixinaysaa. waxa weeyaan kaalintaasi inagu waynu gabnay waxaynu u baahanahay inaynu kaalinta walaalo wax ka qabano. run ahaantii talada markaan soo jeediyay afka la iga wada support gareeyay waayahay baa la yiri laakiin wax facaayil ah
oo laga sameeyay may jirin runtii marka aan ku reebo inama dhalinyaro ah oo dhalinyaradii qurbaha ku kortay ah oo la odhan karo waa ilaa 10 qof oo runtii diyaar u noqday ilaahay raaliha ka noqday in ay contribute gareeyaan inay diyaar u yihiin inay wax qabtaan runtii aad baanan ugu mahad celinayaa inamadaas runtii ma soo koobi karo laakiin 2 iyo 3 waan ka koobi karaa insha allah waa inama uumiya degan iyo inama obsaala degan runtii ilaahay raaliha ka noqdo iyo inama gobolada kala degan 10 qof diyaar waxay u yihiin in ay wax bixiyaan waayahay 10 qof waan bilaabi doonaa insha allahu tacaala aad baan idinka mahad celinayaa maxamed ismaaciil bashiir iyo abshir xasan kayd iyo dhalinyaro kale oo aanan runtii magacyadooda aada soo koobi karin aad baan uga mahad celinayaa oo tacabkooda diyaar u ah inay dadkooda wax ugu qabtaan aad baan idinka mahad celinayaa haddaba waxaynu u baahannahay tusaale ahaan waxaan usoo qaatay waddanka Sweden Jarmalka waxaa jira urur GYL la yidhaahdo runtii iyaguna hortood anaga hortaayo hawshaa waday laakiin iyagu waxaan ku baraarujinayaa in ay hawshan ay u wareegaan oo ay hawshan iyaguna Jarmalka ka bilaabaan oo ay run ahaantii ay abaabulaan in ay calaa qof hal euro ay dhalinyarada inta wax bixin karta 1 euro meel la dhiga bishii runtii anaguna aanu sidaas oo kale ku talagalno waddanka Norway run ahaantii aqoon ma lihi dadka jooga runtiina waa aad baanan uga xumahay cidaan kala communicate gareeyana runtii ma garanayo London iyadana waa aan kulay rajaynayaa inay dad firfircooni ay joogaan oo runtii uu ka mid yahay yani aqoonyahankeena Cabdalla Daakir runtii in cali muuse oo dhaqaalayahan ah runtii waan jeclaa inuu isaguna nagala qayb qaato arrintan aan wadno waxaan se jeclaan lahaa America dadka degan cidda reer America aan odhan karo ama reer Canada aan odhan karo war walaalayaal aynu dadkeena dhisno oo aynu contribute gareyno inagoo si ilaahay dartii voluntary u sameynayna oo ilaahay dartii u sameynayna inaynu dadkeena aynu contribute gareyno oo aynu 10 character u sameyno oo aynu eegno background educationiskooda the youth generation kaas intaynu eegno kii secondary school oo qalma aynu fiigooda yar ka bixino kii yani technical institute-ka ama non formal educationiska kuwa wax ka baran kara ee farsamada gacanta baran karana aynu wax barano haddii ay IT tahay haddii ay plumber tahay haddii ay nurse tahay haddii ay medicine groups ka tahay bal cidii wax baran karta aynu wax barano oo aynu fiiga ka bixino ilaahay dartii intaynu sadaqa u ururino aynu inaku walaalayaal anigu waxaan diyaar u ahay in aan noqdo qofka lacagta bishii wixii soo gala intii igu soo qaybta inaan akoonkii la igu yidhaahdo ku soo shub inaan ku shubo diyaar baan u ahay aniga oo run ahaantiina ka wakiil ah dhowrkaa dhalinyarada ana soo sheegay iyaguna ay diyaar u yihiin walaalayaal aynu dadkeena wax barno oo aynu dadkeena walaal wax barasho aynu buildingkeeni aynu yani deegaamadeenii regional districtgeeni aynu ka imanay walaal aynu dadkeeni aynu wax barno aynu hello at least bal sanad kaliya in ay 10 arday 20 ardayna secondary school ama 30 ardayna secondary school ka baxaan intermediate-kana 20 arday ka baxaan in universal degree 20 arday ay qaataan ama 10 arday ay qaataan sanad kasta hadaynu inta soo saarno the couple of years ka soo socda waxaynu helaynaa 100 inan oo gabooyo ah oo wax barta okay waxa inoo iman doonta inamadii wax bartay halkee bay la tagayaan shaqada waa su'aal aad isweydiinaysaan haddaan idin sheegay shahaadooyinka ay la qaataan